بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم أرديي ومركلة مادتين السوشيالكا iyo chapterkeeni toddobaad oo ka hadlaya leadership ama wax loo yaqaano hogaamin. Ardayay chapterkan waxa ka fiirinayna markaan hogaamin leenahay waxa ka fiirinaynaa hogaamintii islaamiga ahayd soo martay khulafaa ur-raashidiintii xilligii Nabi Maxamed iyo wixii ka dambeeyay ayaan ku fiirin doonaa hogaamintaas ama kaga sheekin doonaa chapterkan. ciwaankana guud waa leadership. Subtopic waxa noo ah Islamic Caliphate, islaamkii ama khilafadii islaamiga ahayd oo aan ka fiirinayno laba khaliif. xasuuso galaaska toddobaad Abubakar iyo waxa ku soo qaadatay Umar. In grade 8 waxa ku qaadanaysaa ama aan ku fiirinaynaa Uthman iyo Ali. Okay. Learning outcomes waxaa laga rabaa bartuhu markuu casharka qaato inuu awood u yeesho ama uu sameeyo inuu qeexi karo wax loo yaqaano ama ereyga caliphate inuu define gareyn karo ama qeexi karo si clear ah isla markaa isagoo tixraacaya casharka uu soo qaatay isla markaa uu soo bartay. sidoo kale inform summary history of Uthman and Ali inuu taariikh kooban ka sheego oo uu sameeyo isagoo ka hadlaya taariikhda Uthman iyo taariikhda Ali. sidoo kale inuu tilmaamo wax loo yaqaano achievements koodii guulahoodii inuu sheego waxyaalihii ay qabteen in hoggaan kasta ee adduun soo mara ama maamul soo mara wuxuu leeyahay guulo uu gaaray achievements. daliilna waa yeelan karaa laakiin achievements baa jira guulo uu gaaray muxuu intuu hayay xilka ninkaas hebel soo kordhiyey maxaan guul gaarnay. marka waxaa si kooban waad awood ugu yeeli doontaan inaad sheegtaan taariikh kooban ka hadlaysa Uthman iyo Ali. haddaynu bilowno casharka aynu soo qaadano Uthman ku horeyno. Uthman radiyallahu anhu wuxuu ahaa ama qeexida wax loo yaqaano definitionka caliphate. waa maxay kelmadda caliphate? is an Islamic state waa dawlad islaam ah that rule by Islamic law taasoo isku maamusha sharciga ama shareecada islaamka ayaa loo yaqaanaa caliphate and it governed by caliphate kuwaasoo ay maamulayeen ama hoggaan ku hayeen khaliifo ama khulafadaas oo ah afartii khulafaa ur-raashidiin waa Abubakar, Umar, Uthman iyo Ali. Okay. taariikhda kooban ka hadlaysa Uthman radiyallahu anhu. Uthman wuxuu xukunka qabtay baa lahaa 644 ilaa 656. wuxuu ahaa khaliifkii saddexaad ee khulafaa ur-raashidiinta. wuxuu ahaa khaliif ka qayb qaatay juhdi badan geliyay waxyaalo badan markaas waqtigaas uu xukunka hayay uu sameeyay. Uthman wuxuu ahaa oo nasiib u yeeshay inuu Nabi Maxamed alayhi salaam labadiisii gabdhood uu dhalay midba mar uu siiyay. nasiibkaas ayaa u dheeraa khulafaa ur-raashidiinta kale ama saddex kale oo markaas xukunka la wadaagtay. waxa kale oo ahaa Uthman ruux ay malaa'igtu u ducayso oo markaas malaa'igtu ka xishooto yani wanaagiisa iyo heerka uu joogo. Uthman wuxuu ahaa ama uu gaaray heerka u sareysay oo ah in malaa'igtu ka xishooto Uthman bin Affan radiyallahu anhu. waxa la sheegaa ama taariikhuhu sheegaan si laga soo wariyay maxaa taariikhaha islaamka in Nabi Maxamed alayhi salaam soo gurigiisa ku sugan oo gurigiisa jooga beedkiisa jooga uu u soo galay Abubakar
waa dareemaysaa qofku markuu guriga joogo just relax weeye waa nafis buu ku jira waxa weeye dhulku iska fadhiyaa gooshu iska fadhiyaa waxa laga yaabaa inuu macaws iska san yahay muxuu ahaa jilbku banaan yahay oo iska relax baa dareemaysaa qofku guriga joogo iyo markuu meel kale joogo waa kala labo marka waxa la sheegaa inuu u soo galay Abubakar isla markaasna oo arrin kala ahaa arrintii markuu ka dhameystay uu baxay waxa soo galay Umar baa soo galay Umar markuu soo galay haddana waxa dhacay sidoo kale waa uu dhameystay ka bacdi waa baxay ka bacdi waxa soo galay Uthman baa soo galay markuu Uthman soo galay baa la yiri Aisha marka ka sheekeynayso waxa tiri Aisha markuu Uthman soo galay jilibkiisii ayuu daboolay oo wuxuu iska dhigay si qof markaas hagaajinaya oo markaas sameynaya muxuu ahaa sameynaya xishood ku jiro waxa markuu ka baxay way tiri nabi Allah Abubakar baa ku soo galay isma aadan bedelin waxa ku soo galay Umar baa ku soo galay isma aadan bedelin Uthman ku soo galay way aad isku bedeshay maxaastii hogaagii waxa laga yaabaa markaas isku dabashay siin Aisha ruux ay malaa'iktu ka xishooto ma waanan anu maxaan u xishan waayay maxay diiday buu yiri Uthman bin Affan darajo uu gaaray malaa'ikta ka xishoota oo hatta magaciisa hatta Uthman ma dhahaane waxay dhahaayeen ninkii la saaxiibka ahaa labada nuur ruuxii la saaxiibka ahaa ama muxuu ahaa ilaahay ku galaday ama sawjad uga dhisay xaasas uga dhigay labada nuur waa labadii nuur uu dhalay ama labadii gabadhood uu dhalay muxuu ahaa Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam marka Uthman haddaan iraahdo aan ka sheekayno muxuu ahaa taariikhdiisii ardaydii kuma soo koobi karno muxuu ahaa xiisad iyo laba xiiso waxaan filayaa haddii loo naasino dugsiyadka baa Uthman dhig waxaan filayaa inuu ugu yaraan lahayd haddii aan taariikhdaas dib loo raaco iyo waxyaalihii uu markaas adduunka kaga tegey ama ku reebay Uthman bin Affan radiyallahu anhu sidoo kale wuxuu ahaa saaxiibka nabiga waxa saddexaad ayuu ahaa isla markaasna wuxuu ahaa nin aad iyo aad u qadariyo ama u sharfo nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam haddaan soo socono taariikhda Uthman sidoo kale wuxuu door muhiim ah ka ciyaaray ama door muhiim ah ka geystay taariikhda islaamka wuxuuna ahaa khaliifka saddexaad ee markaas soo mara khulafaa raashidiinta Uthman bin Affan radiyallahu anhu waxa uu ka dhashay qabiil lagu magacaabo reer Umayyad oo Ilaahay hanti iyo maal bisiiyay kuwaas oo markaa ahaa qabaa'il dega magaalada Makka 7 years after Prophet Muhammad dhalashadii Nabi Maxamed 7 sano ay halkaas ayuu markaas ama ka soo jeeday ama uu ka dhashay qabaa'ilka lagu magacaabo reer Umayyad oo markaa ahaa qabaa'ilka ugu hantida badan ugu maal qabansan markaana dega challenge gareeya magaalada Makka sidoo kale Uthman bin Affan wuxuu ahaa khaliifkii saddexaad wuxuuna xukunka hayay baa lahaa 12 sano ayuu xukunka hayay Uthman bin Affan radiyallahu anhu Uthman waa la dilay waxa weeye gurigiisa ayaa lagu dilay baa lahaa sidoo kale Uthman waxa uu lahaa ama uu sameeyay guulaas waxaan ugu yeelanaa achievements guulaha ugu yeelanaa achievementka uu sameeyay waxa kamid ah inuu sameeyay gabi ahaanba quraankii hal meel iskugu ururiyay he compiled the whole Quran into one book quraankii ama kalaamkii Ilaahay oo ah waxa ugu wanaagsan ee la karaameeyo la sharfo la hagaajiyo meel wanaagsan la dhigo meel wanaagsan laga sheego oo markasta aad akhrido aad noqonayso ruux muxuu ahaa loo duceeyay ama Ilaahay jecel yahay dadkana Ilaahay uga dhow waayo quraanku waa kalaamkii Ilaahay mar kalaamkii Ilaahayna waxaad ka helaysaa fadli aad iyo aad u muhiimsan haddii aad akhrido sidoo kale ardaydii Uthman bin Affan guulihiisii waxaa ka mid ahaa inuu fidiyay ama ku fiday dawladdiisa ku fiday muxuu ahaa dhul badan dhulalkaas oo ka mid ah Persia dhulka maanta loo yaqaan Iran
sidoo kale wuxuu ku fiday muxuu ahaa Khurasan dhulka maanta loo yaqaano Afghanistan dhulkaas oo dhan dowladdu ku fiday sidoo kale wuxuu hormariyay oo aad iyo aad uga qayb qaatay ciidanka badda marka muxuu askarta ha ahaadeen markaas badda ka shaqeysa ayaa uu hormariyay okay intaas haddaynu taariikhdiisa ku soo koobnay Cusmaan bin Affan bal aan dul istaagno casharkeena markaas definition of caliphate in an Islamic state that is ruled by Islamic law or Sharia and it governed a Khalif. كلمة خليفة وحوي ودولة إسلامة دولة سو أي مامشو محوها دولة إسلام مامولان كونوا مامولان شريعة وحنا مامولة أما محوها حكم كوهي خليفة سوها أفرتي خلفاء الراشدين عن سو الشيخني. مركز definition كخليفة يلو ويديو دادست أنت كوسو كوبيسا. Caliphate is an Islamic state that is ruled by Islamic law or Sharia and it governed by an Khalif. حفلة إن بنتكاس أديك حسان أرديي أو definition كخليفة. أوكي. عثمان بن عفان حكم كقبتي لحب بقول فرتنا أفر إلا لحب بقول كنتن إيه لح. عثمان بن عفان he was one of the companion Prophet Muhammad وحوها رجي أما أصحابتي نبي محمد كتير سنة أما لصاحبك أحد. He played a major role وحكد جيست دور مهم in early Islamic history ما كان فيرنو تاريخ ذا إسلام وحناها تادي خليف كي سدحات أيوها he was born into the wealth سكول حكد شباب لها ضد قنيئة مع القبينة إلهي هنتي مقعد السي مركا دقن مقالة مكة وقبيلك وهريرك لقوا مقعاو بنو أميد كواسو كمدا قريش ترايب ومكة دقا قبائل قريش كمدا مركا دقا مقالة مكة أوكي وحكم كهيي عثمان بن عفان سووا أخليك سدحات إلى الصعو وحكم كهيي عثمان بن عفان سووا مركا حكم كهيا لبي 10 سنة أيوه هيي تاريخ شيئا وصل شيئا عثمان سووا كله وحلو قد لي قريجي سال قد لي بالله تاريخ شكتا أشيفتك وحوري القرآن كي هل بالكوري دول بدن مقبصدي دول كانوا حكم ده بيرشيا حمان طلع يقان العراق إيران سووا كله واحد قبصدي دول كانوا مقعابو خروزان دول كمان طلع يقان هي أفغانستان سووا كله حرمي عيدا كبدا halkaas waxaan ugu ardayay 10 keeni koowaad oo ahaa kuna saabsanaa leadership qaybta khaliifka Cusmaan bin Affan. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.